aamin sidaasoo kale ma ogtahay Easter Sunday ayadana waxay ku xigtaa waa isla isbuucan jimcada kadib. Yes. So we talked about Good Friday. Yeah. Now it's Sunday. What's so special about Easter Sunday? aad iyo aad Sunday laftirkeeda waa maalin aan dabaaldegno oo aad iyo aad u fiican. waa maalinkii Ciise Masiix ka sara kacay dhimashada oo uu ka soo baxay maartay asagoo soo bixiyay dambiyadeenii uu soo baxay oo uu dadka la kulmay. wuxuu la kulmay maalinkaas 500 oo qof in ka badan buu la kulmay, laakiin waxaa dhacday arrin oo la yaab la cajiib ah. si arrinkaas aan isula fahanno waxaan rabnaa tusaale inaan soo qaadano. kaba soo qaad hadda haddii qof uu ku imaado ku yiraahdo London aan ka imaaday, waxaan soo arkay Mo Farah oo 2 bilood ku soo guuleystay, ma rumaysan lahayd? If I haven't seen the videos, no. aad iyo aad ka waran haddii dad badan oo reer London ah hadday ku imaadaan oo ka badan 500 oo qof ay ka badan ay ku yiraahdaan waan aragnay markii Mo Farah 2 bilood dahab uu qaadayay, marka waa inaad rumaysaa haddii ku yiraahdaan ama na aamintaa. ka waran ma aamini lahayd? 500 eyewitnesses. It does change a lot. I believe 500 people. aad iyo aad waa sax weeye, laakiin maalinkii Sayid Ciise Masiix uu ka soo sara kacay dhimashada waxaa jiray nin la yiraahdo Thomas. 500 oo qof in ka badan u imaada waxay yiraahdeen annaga aragnay Ciise Masiix markuu u sara kacay. Thomasow waa inaad aamintaa. Thomas laakiin wuu diiday, wuu aamin waayay. Oh, okay. wuxuu yiri waxaan aamini karaa haddii Ciise Masiix ii imaado oo uu korkayga taabto oo aan korkiisa taabto oo aan wada hadalno waan aaminayaa markaas. Okay, so he needed more than eyewitness. He said, I need physical proof. Physical proof. kadib Ciise Masiix waa uu imaaday, wuu soo hor fadhiistay, wuu taabtay, wuu arkay, wuu la hadlay. markaas Thomas wuxuu yiri hadda waan ku qanacsanahay in Ciise Masiix sara kacay. Okay. kadibna Ciise Masiix wuu hadlay, wuxuu yiri waxaa barakaysan buu yiri, waxa aad u barakaysan kuwa iyagoon arkin rumaystay, kuwa iyagoon joogin maalinkaas Sundayda aan sara kacay aan joogin, laakiin markii loo sheegay rumaystay, kuwaas waa barakaysan yihiin. innaga waxaan ka mid nahay kuwaas ma aanan arkin oo ma aanan joogin maalinkaas, laakiin waxaa inoo sheegaya Bible-ka, waan rumaysanay, waxaan nahay kuwa barakaysan. marka waxaan ku faraxsanahay oo u dabaaldegaynaa inuu Rabbi yiri way barakaysan yihiin kuwaas. waxaan idin sheegayaa walaalahayow, haddii aad doonaysaan inaad aragtaan meesha ay ku qoran tahay wixii dhacay maalinkaas xad ahayd iyo Thomas marqaati furkii uu Ciise Masiix u sameeyay iyo sidaasoo kale message-ka uu noo soo diray sayidkeena Ciise Masiix, halkan ayaan kugu soo diraynaa nala soo xiriira.